السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد أقوصور لين أكاديمي. عشق الله كتير كورس كيني جرامر. عشق كنا ما نطرح نكجها للدورنا إنه كل بلعب دورنا قريب تبوه رئيسي parts of tenses. tennis دي أيون بلعب دورنا وحنا كل شيء كين دورنا وعشق كنا إنه كوارك دورنا present simple tennis. تنس وكواد إنه قريب تنارك دورنا. قريبه هو عشق إنه وحنا سؤال كيني parts of speech. سدي قريب دورنا صار مني ما نطرح إنه عشق كنا بلعب دورنا parts of tenses. ولي waxaan ku bilaabi doonaa present simple tennis waa tennis loo isticmaalo in lagaga sheekeeyo dhacdooyinka iyo ficilada maalinlaha ee sida joogtada u dhaca ee soo noqnoqda tusaalayaal baan ka bixin doonaa waynu sharixi doonaa waynu faahfaahin doonaa ee ku soo dhawaada casharka present simple tennis saynu hordhicisaba ku soo sheegnay waa tennis aynu isticmaalayna in kaga sheekeyno dhacdooyinka ama ficilada sida joogtada u dhacaya ee mar walba dhaca ama soo noqnoqda waana tenniskeenii koowaad qaybteennii labaad ee parts of tenses waxaan isku daynaa marka hore inaan sheegno bal waxaynu isticmaalo the present simple tense is used to make simple statements describe an action that happen repeatedly habitual and to describe things that are generally true present simple tense is used waxaa loo isticmaalaa present simple tenniska to make simple statements in lagu sameeyo jumlado iska fudud describe oo qeexaya an action dhacdo that happen repeatedly u dhacda ama loo qabto si joogta habitual yani habitual waxa weeye wax si caada ah loo qabto soo noqnoqdo oo aan kala go'ol lahayn and to describe iyo in lagu sharaxo things ashyaada ama xaaladaha ama ficilada that are generally true sida guud run u ah yani sidoo kale waxaanu isticmaalnaa waxyaabaha xaqiiqada runta ah ee guud ahaanba runta ah inaan ku sheegno tusaale ahaan in qorraxda maalin bari ka soo baxdo in qorraxdu iftiinto waxaasoo dhan waxa weeye waa maxay waa generally true waa guud ahaan bay run yihiin marka waxyaabaha xaqiiqooyinka la isla yaqaano ah ee guud ahaanba runta waxaanu isticmaalnaa inaynu ku sheegno present simple tense ayaanu isticmaalnaa bal waxaan eegnaa when do we use present simple goorma ayaynu isticmaalnaa ama xaaladihii baynu isticmaalnaa present simple we use present simple too present simple waxaynu isticmaalnaa ama tenniskan waxaynu isticmaalnaa to make simple statements inaynu jumladaha iska fudud ee kooban aynu ku samayno example tusaale ahaan I like apples tufaaxan jeclay ama tufaaxa waan jeclahay they are happy way faraxsan yihiin we watch TV-ga ayaanu daawanaa ama telefishinkaanu daawanaa waa iska jumlada yar oo fudud I am a student arday baan ahay I like playing football waan jeclahay ciyaarista kubadda cagta jumladaha yar iska kooban ee simple-ka ama simple statements-ka ayaynu sidoo kale u isticmaalnaa inaan ku samayno sidoo kale maxaynu isticmaalnaa we use present simple to describe repeated action present simple waxaan sidoo kale u isticmaalnaa inaynu ku qeexno dhacdooyinka soo noqnoqdo tusaale ahaan I get up early waan toosaa maxay goor hore aan toosaa anugu subax walba goor hore aan toosaa macnaheedu wey yani wax subax walba soo noqnoqda I go to schoolkan aadaa wax subax walba soo noqnoqda I read my lessons casharadaan akhristaa I watch TV every night habeen kasta TV-ga ayaan daawadaa I read newspapers journalada iyo jaraa'idada ayaan akhriyaa marka wax soo noqnoqonaya waxaanu isticmaalaynaa to describe repeated actions we also use to make simple statements sidoo kale waxaanu isticmaalaynaa inaynu kaga sheekeyno waxyaabaha soo noqnoqonaya oo bahalka diagramkeedu waxaynu tusayaa markaaynu leenahay dhacdo markaynu ka sheekeyno dhacdo socota oo mar walba soo noqnoqota tusaale ahaan now wax iminka dhacayo mar walba aad samayso tusaale ahaan I get up early goor hore ayaan toosaa oo wax mar walba soo noqnoqda oo aynu isticmaalayno inaynu mar walba kaga sheekeyno inaynu mar walba qabano subax walba tusaale ahaan bal tusaalahan aynu eegno example she eats lunch at noon every day maalin kasta qadada waxay cuntaa duhurka yani duhurkii qadaysaa maalin walba the train leaves at 2 p.m. trainku wuxuu tagaa 2 maalinimo maalin walba xilligaasuu tagaa maalin walba xilligaasii qadada cuntaa marka maxaynu isticmaalnaa present simple tense to describe repeated action inaynu ku sheegno dhacdo soo noqnoqonaysa oo maalinlaha aynu hore ugu sii soconno sidoo kale bal tusaalahan eeg we go to school at 7 o'clock iskuulka waxaanu tagnaa 7 the classes start at 7:30 p.m. fasaladu ama casharadu waxay bilaabmaan 7 iyo barka yani maalin kasta xilligaasay bilaabayaan maalin kasta anagu iskuulka xilligaasaan tagnaa waa habitual action ama waa repeated action oo waa dhacdo soo noqnoqonaysa mar walba she eats lunch at noon every day maalin kasta qadada waxay cuntaa duhurka ama 12 cuntaa the train leaves at 2 p.m. trainku wuxuu tagaa 2 oo buuraa we go to school at 7 o'clock iskuulka waxaan aadnaa 7
The classes start at 7:30 fasaladu iyo casharadu waxay bilaabaan 7 iyo barka waa mid kale oo kamid ah maxay qaababka aynu isticmaalno present simple tense oo waxaanu isticmaalnaa inaan ku sheegno dhacdooyinka soo noqnoqda maalin walba tusaale ahaan sidoo kale waxaanu isticmaalnaa present simple tense to describe general facts inaynu ku sheegno maxay wax xaqiiqooyinka guud ee la isla yaqaan tusaale ahaan qorraxda inay bari ka soo baxdo tusaale ahaan inay habeenkii dhaxan ay jirto inay habeenkii qaboobaato maalintii ay kulushay inay saasoo kale u isticmaalo oo aynu waxyaabaha noocaas ku sheegnay inuu isticmaalno tusaale ahaan maxaa inagu yiri ice melts at 0°C barafku marka hore uu baraf yahay uu ka hooseeya 0°C heerkulkiisu uu ka hooseeya laakiin waxaan isla garanaynaa haddii soo gaaro 0°C uu dhalaalaya barafki marka waa maxay waa xaqiiqo aan isla garanayno sidoo kale water boils at 100°C biyo waxay ku karkaraan oo ay uumi isugu bedelaan 100°, oo wax isla garanayno markaas waxaan sidoo kale u isticmaalnaa present simple inaan kaga sheekeyno general facts xaqiiqooyinka guud ee isla naqaan tusaalayaasha baan galno example I live in Bro ayaan ku noolahay the sun rises from the east qorraxdu waxay ka soo baxdaa bari the plants give us food dhirtu waxayna siiyaan cunto jumladahan oo dhan dhammaantoodna waxa weeye xaqiiqooyin aan isla garanayno oo tusaale ahaan marka ku dhaahdo I live in Bro waa general fact waa xaqiiqo guud oo la isla garanayo yani dad badan ay garanayaan amaba adiga aan xitaa aan ku sheegay laga yaabo inaad garanayso haddaan ku dhaahdo the sun rises from the east ila yaab meesid oo waa xaqiiqo guud qorraxda inay bari ka soo baxdo the plants dhirtu give us food cuntayna siiyaa oo cuntadeena inaan dhirta ka helo iyaduna waa mid xaqiiqo guud oo aan isla garanayno marka waxaanu isticmaalnaa inaynu ku sheegno ama aynu ku sameeyno simple statements inaynu ku sheegno repeated actions iyo sidoo kale inaynu ku sheegno maxay general facts aynu ku qeexno aynu ku sameeyno marka siyaabaha kala duwan baynu isticmaalaynaa ama xaaladaha kala duwan aynu isticmaalnaa present simple aynu hore ugu sii socono way hadoo tenniskan maxaa magacan loogu bixiyay present simple present simple is a simple tense present simple waxaa simple tense loo yiri because it does not have modal or auxiliary verbs malaha waxa la yiraahdo modal ama auxiliary verb waynaga soo aragnayo verbs waynaga qaybinay verb to be action verbs modal verbs iyo auxiliary verbs afartii qaybood ugu waaweynaa verbka aynu qaybinay hadda xasuusato laba kamid ah malaha marka tennisku hadaan lahayn modal verb ama auxiliary verb auxiliary verb wuxuu ahaa could iyo should iyo would ayuu ahaa modal verbs kana waxa la oran jiray can iyo kuwaas ay ahaayeen marka hadaan kuwa lahayn waxa la oranayaa waa simple tense marka present simple tense malaha modal verb iyo auxiliary verb midna malaha sida darteed baa loo yiri waa simple tense instead taa bedelkeeda hadaba it has wuxuu leeyahay either a verb to be leeyahay oo wuxuu leeyahay ficilladii ahaanshaha oo main verb ama main verb leeyahay action verb wixii loo yaqaan labada mid kamid ah uu yeelanaya oo present simple tense waxaad si xasuusnaanaysaa maskaxda ku haynaysaa jumladaha laga sameeyaa waa laba qaybood midun inuu yahay present simple verb to be ama inuu yahay present simple main verb ama action verb saddexda labada qaybood ayuu kala qaybsamayaa laakiin malaha wax la raahdo modal verb iyo auxiliary verb labada midna malaha tusaale ahaan hadii jumladaha dib ugu noqono I live in Bro ayaan ku noolahay jumladan waxay leedahay maxay action verb leedahay ama main verb leedahay the sun rises from the east qorraxda waxay ka soo baxdaa bari waxay leedahay action verb ama main verb wixii loo yaqaanay the plants give us food dhirtu waxayna siisaa cunto waa action verb ama waa wixii ay main verb ka u naqaanay jumladahan iyagana sidoo kale dhammaantood waxay leeyihiin action verbs ama main verbs the classes start at 7:30 we go to school at 7 o'clock the train leaves at 2 p.m. she eats lunch at noon every day dhammaantood jumladahan waxay leeyihiin maxay action verbs ama main verbs eats leaves is go classes waxaas oo dhan waa maxay waa main verbs laakiin bal xagan hore aynu eegno maxay niri I like happily waa main verb they are happy jana waa wixii loo yaqaan maxay verb to be we watch TV waa action verb ama main verb marka present simple tense ka jumladihiisa arki doonaa waa labada qaybood inuu yeesho verb to be ama ECR ficilladii ahaanshaha iyo inuu aragno iyagoo leh action verbs laakiin modal verbna ma arki doono auxiliary verbna ma arki doono aynu hore u sii galo oo aynu casharkeena hore ugu sii socono marka maadaama aynu fahnay simple present tense waxyaabaha aynu isticmaalno gooraha aynu isticmaalno verbka uu ka kooban yahay oo ah verb to be ama main verb ama action verb waxaanu naqaano waxaanu u baahnay qaabkaynu sameeyno jumlada dad xasuusato ay markaan sentence ka sheekeynay waxaanu soo aragnay sentence inuu ka kooban yahay subject iyo verb iyo object ama subject iyo verb uu ka koobnaan karo subject iyo verb iyo objectna uu ka koobnaan karo oo saddexda uu yeelan karo marka haddii aynu isnaahno bal aynu eegno how to form si loo sameeyo simple present tense
waxaynu ku horeynaa markaa fib to b-ga oo inaga nidhi jumladaha ay samaynayna laba qaybood bay noqdaan qaybo fib to b ama qaybo mayfeeba bal aynu eegno markaa qaybaha fib to b-gaasa loo samaynayo oo subjectiska waxay naqaanaa inay 7 ahaayeen subject pronouns dad xasuusto I iyo you iyo we iyo they iyo he iyo she 7daas maxaa la odhan jiray subject pronouns baa la odhan jiray waa hadduu ficil sameeyaha ama subject uu pronoun yahay haddii uu magac noqdona tee waaba magaco ama singular buu noqonaya subjectku ama wuxuu noqonaya plural buu noqonaya marka inagu tusaalahaan haddaynu haysano 7dii subject pronouns aynu haysano I waxay naqaanaa markaynu joogno fib to b-ga present simple-ka waxay qaadanaysaa am laakiin you iyo we iyo they waxaan odhanaa are he iyo she iyo itna waxaa raacaya fib to b-ga is tusaalahaan waxaan odhanayaa you are a student at Al-Burhan school ama we are students at Al-Burhan they are students at Al-Burhan he is a student at Al-Burhan she is a student at Al-Burhan it is a student at Al-Burhan ama waxaan odhan karnaa I am a doctor at Manhal Hospital you are a doctor at a Manhal Hospital we are doctors at Manhal Hospital they are doctors at Manhal Hospital ama he is she is it is a doctor at Manhal Hospital oo ficilada ahaanshaha fib to b-ga ku jira present simple waa am iyo is iyo are waa saddexda weey saddexdaana waxay u kala qaadanayaan I waxay qaadan jirtay am you iyo we iyo theyna waxay qaadan jireen are he iyo she iyo isna waxay qaadan jireen maxay is marka fib to b-ga qaabkaas aynu sameynaa inagoo qaabka raacayna tusaalahaan I am a teacher she is a teacher she is a nurse he is a doctor he is a mechanic they are policeman qasaynu isticmaalna marka jumladaha aynu sameynaa bal bahalkan yar aynu eegno markaynu su'aalaha sameeyno waxaan odhanaynaa tusaalahaan am I busy anigu mashquul baanahay ama are you busy marka jumladaha questionska sameynayno are you busy mashquul baa tahay are you Chinese are we Chinese are we busy are we happy are they happy marka hore soo aragnay they are happy marka ay maxay ahaayeen jumladaha saxda ama positive-ka ama affirmative-ka markay ahaayeen wanaga nidhi they are happy su'aal markay ka dhigan waxaan sameynaa are they happy oo xaggan u baan fib to b-ga soo marinaa fib to b-ga jumlada ku bilaabina is she happy is he happy is it happy ama is it busy is it Chinese saasaan sameynaa marka haddii aynu short answers bixin waxaan odhanaa yes I am am I a Chinese yes I am are you a Chinese yes you are we busy yes we are they Chinese yes they are is he busy yes he is ama yes she is ama yes it is negative tan ka dhigna saynu sameynaa not un baynu ku darayna I am not a teacher I am not busy I am not happy horana no tusaalahaan am I happy no I am not happy ama no I amn't no I am not ama no I'm not no you are not ama no they are not ama no we are not ama no he isn't ama no he is not no she isn't ama no she is not ama no it isn't ama no it's not marka qaabkaas aynu sameynaa inagoo raacayna marka sidan table-ka inooga muuqata haddii aad u baahato marka cashir ku cesho waxaan filayaa inaad fahantay marka qaabka aynu sameynayna fib to b-ga oo isku fududiya fib to b aynu hore ugu sii socono bal hadda sheekadan yaray waa sheeko ama waa jumlado la isu geeyay oo sheeko laga sameeyay oo laakiin ku socota present simple fib to b my name is Farah I am 7 years old I am in grade 7 in Al-Burhan Primary School the school is very big it is also clean and tidy the students are friendly and polite my young brother is also a student in this school he is in grade 4 he is 6 years old he is smart and clever however he is too shy he is always on time my class is wide and bright but his class is big and hot it is at the back of the school on the other hand my class is in the middle of the compound there are also 3 windows the door is wide too there is 1 window and 1 door in his classroom sheekada dhammaanteed waxay ka sheekeynaysaa ama waxay ku socotaa oo aynu ku sameynay inagoo adeegsanay present simple weliba waxaanu si gaar uga faa'iidaysanay fib to b tusaalahaan is iyo are iyo am baa jumladaheena ka wada buux waxaan nidhi markaa waa ficilo ahaanshaa my name is Farah magacaygu wuxuu ahaaday ama magacaygu waa Farah I am 7 years old toddoba jir baanahay waa ahaansho I am in grade 7 in Al-Burhan Primary School dugsiga Al-Burhan Primary School baan
dhigtaa fasalkiisa 7 baan ahay. The school is very big. Fasalku aad buu weyn yahay. It is also clean and tidy. Sidoo kale fasalku wuu nadiifsan yahay, wuuna isku habaysan yahay. The students are friendly. Ardaydu dhammaantood waxa weeye arday saaxiibtinimo fiican oo soo dhaweyn leh, and polite oo edebna leh. My young brother walaalkayga yar is also a student in this school. Waa arday sidoo kale dhigta maxay dugsigan. He is in grade 4. waa fasalka afraad, isagu fasalka afraad buu dhigtaa. He is 6 years old. waa 6 jir. He is smart and clever. waa arday xariifa oo maskax fiican. However, si kastaba ha ahaatee, he's too shy. aad buu muqajil u yahay ama aad buu xishood badan yahay. He is always on time. had iyo jeer iskuulka wuxuu ku yimaadaa waqtiga loogu talagalay, ma soo habsaamo. My class is wide. fasalkaygu wuu ballaanaya, and bright wuuna maxay iftiin badan iyo fiican yahay. But his class is big. laakiin fasalkiisu wuu weyn yahay, and hot wuuna kulul yahay. It is at the back of the school. fasalkiisu wuxuu sidoo kale ku yaalaa maxay xagga dambe ee dugsiga. On the other hand, dhinaca kale marka laga eego ama taa bedelkeeda ama kasoo horjeedkeeda, my class is in the middle of the compound. fasalkaygu wuxuu ku yaalaa bartamaha dugsiga. There are also 3 windows. sidoo kale 3 daaqadood buu galaaskaygu leeyahay. The door is wide too. albaabku sidoo kale wuu ballaaran, waa waasac. There is 1 window and 1 door in his classroom. fasalkiisa waxaa ku yaala hal daaqad iyo hal maxay albaab baa ku yaala. marka jumladan dhammaantood waxaan ku wada samaynay maxay present simple verb to be baan ka samaynay. marka sheeko noocaas, I am a teacher, I am tall, I am kind. jumladaas soo samaysa marka oo waa am iyo ECR verb to be ga. marka dhammaantood haddii ay 7 pronounka subject pronounka yihiin say u kala qaadanna wayn garanaa. I waxay qaadanaysaa am, you iyo we iyo they na are bay qaataan. He iyo she iyo itna is bay qaataan. haddii uu magac yahayna singularku wuxuu qaadanayaa is. hadduu plural yahayna wuxuu qaadanayaa are. tusaale ahaan students are, student is. hadduu singular yahay student, hadduu plural yahayna students. Teachers are iyo teacher is. saasay u kala qaadanaya. marka aynu hore usii gallo qaybteena kale. waxay noogu xigaya markaa present simple main verbkiisa. present simple main verbkiisa isagana subject pronounsku hadday 7 inoo yihiin, waxaynu samaynaynaa un sidan. I eat lunch at 2 p.m. You eat lunch at 2 p.m. every day. verbkun baynu ku daraynaa markaa subjectgii iyo verbkii iyo objectgii markaan saa uga samayno waxaynu samaynaa deedna saasaynu markaa u isticmaalaynaayo aynu uga samaynaynaa verb to be giisana. qaabkan baynu raacaynaa sida halkan inooga muuqata. I have good dress. We have good dress. They have good dress. He has a good dress. laakiin wish badashay marka hore have paid. He iyo she it markay noqotay maxay noqotay has. xeerarka xagga dambe aynu ku arki doonaa cashirkeena oo isagoo faahfaahsan baynu arki doonaa. She has, it has. tusaale halkana muxuu ahaa I eat ama we eat, they eat. laakiin he iyo she iyo it marku noqoto maxay noqonaysaa he eats, she eats, it eats lunch at 2 p.m. every day. marka waad aragtaa markuu subject uu noqdo he iyo she iyo it, verbku isbedelaya laakiin jumladda inta kale isbedeli mayso. tusaale ahaan we drive car, she drives car. She listens to music, we listen to music. She plays football, we play football. isbedelaya markaa verbku markay noqoto he iyo she iyo it oo third personka loo yaqaan. aynu hore ugu sii socono. tusaale ahaan iyadana waa kan qaabkaynu sameynay questionskiisa oo waxa ka dambe ayaan ku arki doonaa questionskiisa. tusaale ahaan do I like football ama do you like English. do we like ama do we love Kelly Jen. do they read comics. does she like football. does he like English. does it like ama does it love Kelly Chen. tasaynu sameynaa markaa su-aalahan oo do iyo does ma isticmaalna markuu noqdo main verb. markii hore uu verb to be ga maxaan isticmaalanay am iyo ECR. sheekadan iyada halkan inooga muuqata waa sheekadii aan markii hore kusoo aragnay iyadoo verb to be ga ahayd. iminka maxaan idhi my name is Farah. I am 7 years old. I study in class 7 in Al Burhan Primary School. markii hore maxaan idhi I am a student. iminka waxaan idhi I study, waxaan dhigtaa. markii hore waxaan ahaa baan idhi fasalka 7. iminka waxaan dhigtaa fasalka 7. I live in Burco. waxaan ku noolahay Burco. I go to school every day. maalin kasta iskuulka ayaan aadaa. I have many friends at school. The school has a beautiful garden. iskuulku wuxuu leeyahay beero qurux badan and every green trees iyo dhir mar walba iska cagaaran. I have a small one at my home. sidoo kale gurigayga aan wax bad ku leeyahay. I really like it very much. aad baan u jecelahay beertayda. We always clean the compound. dugsiga ayaanu subax kasta nadiifinaa. The students like this job. ardaydu shaqadan way jecel yihiin. My young brother also studies. walaalkay sidoo kale wuxuu dhigtaa. marka hore maxaan idhi wuxuu isaguna sidoo kale yahay fasalka afraad. He studies in grade 4. wuxuu dhigtaa fasalka afraad. waxaan idhi wuxuu ahaa fasalka afraad. He loves school. iskuulka ayuu jecel yahay. The teachers love him. macallimiintu sidoo kale way jecel yihiin. however si kastaba ahaatee he does not like ma jecla speaking in front of the students.
inuu ardayda ka hor hadlo marka hore maxay niri he is too shy aad buu qajilaa imika maxay niri ma jeclaa inuu ardayda ka hor hadlo marka hore sheekada waxaan ku sameynay verb to be present simple imika waxaan ku sameynay main verb oo present simple waxaan filayaa inaad fahantay casharkan maanta halkaas ku joogaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inoo casharka ku xiga nabadgelyo